waa ku mahadsantiin ka soo qaybgalka shirkan jaraa'idka oo si joogto ah ugu wargelino shacabka Soomaaliyeed howlgallada ciidamada ka wadaan gaar ahaan caasimadda Soomaaliya. ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka waxay wadaan howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka waxayna gaareen horumar aad u wanaagsan. ciidamada amniga oo ku gudashada waajibaadkooda ayay waxay shalay taariikhdu ay 15 bisha Afraad 2019 soo saareen miinooyin aad u culus gaar ahaan kuwa loo yaqaan anti-tangiya oo lagu aasay hareeraha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo argixisada doonayeen inay ku qarxiyaan gaadiidka shacabka adeegsadaan. sidoo kale isbuucan gudihiisa ciidamada amniga waxay soo xireen ilaa 16 ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kuwaasoo laga soo qabtay suuqa Bakaaraha, Saybiyaano, Afgooye, Ceelasha Biyaha, degmada Wadajir iyo degmada Hiliwaa. dhammaan eedeysanayaashaas waxaa hadda ku socota baaris wixii ka soo baxana waan la wadaagi doonaa insha Allah. sidoo kale waxa ciidanka booliiska ay maanta gacan ku dhigeen dhagarqabo ku tuuraya bombo laanta Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid asigana haddana baaris baa ku socota wixii ka soo baxdana waan la soo wadaagi doonaa. ciidamada amniga waxay ka warhaayaan kuna raad joogaan xubno ka tirsan argixisadu oo ka dhex dhuumanaya bulshada oo iyagoo doonaya inay geystaan qas iyo qalqalgelin amni. dhanka kale waxa ciidamada amniga la faray inay ka digtoonaadaan falalka dhibaatada u keenaya shacabka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan sugidda amnigooda. lama aqbali karo mana loo dulqaadanayo in haba yaraatee askari Soomaaliyeed uu dhibaato gaarsiiyo bulshada waxaana askari walba lagu qabto falkaas la tiigsan doonaa sharciga. shacabka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa in sidii aan hore idinku sheegnay ciidanka booliiska si toos ah ugu soo wici kartiin telefoonka numberka 991 ama 991 saacadood laga heli kara. waxaan codsanaynaa in la soo socodsiisaan wax walba aad ka shakisaan oo deegaankiina ka socdo. ugu dambeyn hay'adaha amniga waxay u mahadcelinayaan shacabka Soomaaliyeed sidii ula shaqeeyaan ay noogu soo jawaabeen codsigii ahaa inay ogeysiyaan markay arkaan dhagarqabayaasha khataraha ay u maleegaan shacabka Soomaaliyeed. tan iyo markaan furnay numberka 991 ama 991 dad badan oo Soomaaliyeed ayaa booliiska la soo wadaagay xog ay heleen arrintaas oo sahashay in laga hortago khataraha ay cadawga maleegeen laguna fuliyay howlgallada iyo dadka lagu soo qabto haddana la wadaagay. warbixintan iyo hay maanta intaas bay ku egtahay.